haddaad tahay xiiseeyo ku xiran YouTube channelka Hirsamo Media qaabkeedu aragtaa barnaamijyada iyo waxyaabaha aan soo gudbino maxaad is leedahay inay ka qaldan yihiin ama ay ka dhiman yihiin tafaasiishaada iyo xogaha aad nala wadaagi lahayd waxaad cod ama fariin qoraal nagu soo diri kartaa WhatsApp numberkan #6 10 51 19 mar kale waa #6 10 51 19 mar kale waa #6 10 51 19 haddaba waan u baahannahay inaan wax badan ka ogaano la socodkaaga ku aadan bandhigyadeena idaacadda raadiyo Hirsamo hirka nabadda guusha tilmaaweeye toosan tusabeeye waxtar leh tabaweeye la isku tilmaamo tabeeye aqoon oo tusaale weeye tamaamaho tubtii lagu tanaadiyo tiigsi weeye idaacadeed Hirsamo tubteeda taariikhdeeda tabanoo tacab badan loo maray Hirsamo Radio tiirka asaasiga iyo tubta nabadda waa Hirsamo Radio wargelin muhiima waxaynu ku wargelinaynaa saaxiibadii noogu bartay dhanka YouTube-ka inaynu ku soo kordhinay idaacadeena Hirsamo page aynu ku yeelano Facebook-ga page-kaasi oo kamid ah page-ka ay idaacadu leedahay page-ka raadiyo Hirsamo fadlan haddii aad doonayso inaad ka mid noqoto saaxiibada page-kaasi ku xiran isla markaana la socdo macluumaadyada aan soo bandhigno waad like gareyn kartaa adigoo searching-ka Facebook-gaaga ku raadinaya raadiyo Hirsamo kadibna waxa ku soo bixi doona page-ka inkastoo page-ku aanu wali habaysnayn balse waxaynu heli doonaa in asxaabta like soo tiraada ee page-keena ka mid noqoto raadiyo Hirsamo hirka nabadda guusha barnaamijka haldoorka Hirsamo waa barnaamij lagu soo qaato arrimaha diiniga iyo qisooyin muujinaya xigmado aad u qiimo badan barnaamijka intiisa badan waxaa looga hadlaa xanuunka iyo horumarinta dhalinta barnaamijkan waxaad ka dhageysan kartaan raadiyo Hirsamo waana barnaamij muujinaya isla markaana kordhinaya maanka daayarta raadiyo Hirsamo ayaadna kala socon kulan wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad ku xiisaha badnaa ee haldoorka Hirsamo iyo hanuuninta dhalinta barnaamijkeena maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa in waxyaabo kala duwan dhamaystirka qaybtii aynu kaga waramaynay qisadii odayga ka sheekeynayay taxanihiisa sidoo kale waxaan maanta aan idinkugu soo gudbin doonaa sababta ceelkan magaca Samsam loogu bixiyay ayaa ay culimadu taariikhda islaamku sheegeen inay la xidhiidho qisada ceelka iyo qisada ceelka ka dambaysa biyaha Samsamka aan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa waa mar kale iyo haldoorka Hirsamo waa tahay dhegeystayaal waxaynu markaana sii dhammaystireynaa qisadii aynu qaybtii hore ee barnaamijkeena aan ku soo qaadanay ee ka sheekeynaysay wadaadkii taxanihiisa waa tahay iyadoo qayb xiiso badan marayso ayaan sii ambaqaadeen anigii waxaa hal mar asiibay murugo walaac isla hadal walbahaar niyad jab iyo wax aananba weligay ballay oran oo caa la yidhi waxaan isdhahay naagtu weligaaba ma aadan aragee xaggeebay xumaantaada ku aragtay allahu akbar waxaan dhahay walaalo ani xaggee ku aragtay samahayga iyo xumahayga waxay igu tiri walaalo ma waxaa isku eg qof Alle iyo rasuulkiisa rumeeyay oo sunnadii ka muuqato iyo qof aan Alle rumayn oo xarigii eebba jaray ani waxaan idhi walaalo meeshu waa carwe banaanka inoo saar hal mar oo qura waxay igu tiri macsiilowiyada ma raaco balse hal arrin baan kuu samayn karaa maxay tahay baan hal mar la soo booday anoo neefkul iga soo booday waxay tiri aboowe haddii aad ii sheegto hal wanaag oo aad samaysay inta aad noolayd waan kugula hadlayaa meesha aad rabto waxaa hal mar isbedelay dareenkayga waxaan garowsaday waxaana aan garan waayey waxaana ii muuqda kaliya xumaan aan sameeyo oo qura waan ilmeeyey hal mar waxaa isbedelay muuqaalkaygii waan murugooday hadalna waa iga soo bixi waaye
رفعت اسمها في كل دولة شرفت بلدكم بالمحافل رفعت اسمها في كل دولة way igu soo dhawaatay waxay igu tiri walaalo mar horaan kuu sheegay balse hadda waxaad haysataa jaanis alla u toobad keento lana imow wixii uu ku furay isagana har xumaha aad ku jirto haddii aad isaga harto xumaha allana u noqoto wax walba oo aad jeceshahay waan kuu samayn haddana waan baxayaa balse ciwaankayga ayaan ku siinayaa wayna i siisay waxaan aaday gurigaygii anoo argagaxsan waxaan toos u abbaaray qolkaygii hoosta ayaan ka soo xirtay waxaan dib ugu noqday noloshaydii waxaan xisaabshay in hal mar bal in aan alle u noqday waxaan waayey hal mar oo aan wanaag sameeyey allahu akbar waxaan bilaabay in aan mayrto qubaysto kadibna waxaan aaday masjidka waxaana soo tukaday cishihii sunnayaal allana waan baryey alle ayaana dembi dhaaf weydiistay allana waan u mahadnaqay iga soo celiyey meesha xun ee aan ku socday aabbahay ayaa i arkay anoo tukanaya ducaysanaya gacmahana kor u taagaya waa uu ooyey marna waa uu farxay wuuna ii duceeyey alla ayuu u mahad celiyey isoo hanuuniyey qof kastana saqiir iyo kabiirba waxa uu idhahaa alla ayaa hanuuniyey dariskii ayaa xataa guriga yimi waxaan garowsaday in aan meel xun ku socday waxaan bilaabay in aananba masjidka ka bixin salaad walboo tukado alle baryo toobad saliim ahna la imaado allow iga aqbalay waxaan noqday qofka ugu horeeya masjidka uguna dambeeya qur-aanka ayaan xafiday akhriyey waxaan bartay axkaamta islaamka axaadiista tafsiirka iyo dhammaan qaybaha diinta oo dhan maalin maalmaha ka mida ayaa masjidka ka soo baxay waxaa iga hortime gabar xijaaban aad u qurux badan sunnadana ka muuqata aadan malaysan karin waxay igu tiri hebel soomatiid haabaan idhi anoo wejiga ka dadbanaya waxay tiri alla ayaa mahad u sugnaatay ku soo hanuuniyey waxay tiri anim i garan may ayaan dhahay waxay tiri waa gabadhii habeenkii aad carwada ku kulmayseen awal waan sii jeedaye waan soo jeestay waxaana hal mar la soo booday maheblaa iyo qoftii alla ii soo diray oo godka shaydaan iga celisaybaa haabay tiri waxaan idhi abaalkaaga ma gudi karo waxay tiri anisaan horeyba kuugu ballanqaaday wax walba oo wanaaga waa iga diyaar xataa haddii aad guur iga rabto waayo maanta waxaad ku joogtaa jidkii alle waxaadna u muuqataa ruux xanuunsan waxaan kugu diido ma garanayo ruux alle rumeeyey wanaag la yimi waajibaadkiisa gutay wixii la farayna la yimaaday wixii laga reebayna ay ka reebtoonaadaan intaas kadib waxaan gudagalay inaan raadsho gabadha waanan guursaday waxay bartay alla wixii uu baray oo dhan alxamdulilaah hadda waxay ii dhashay 7 wiil iyo 4 gabdhood waxaana noqonay reer diinta lagu kunyo ma haddaas alla ka sokow waxaa iska leh xaaskeyga نشامة والوطن عزوة شبابه نشامة والزمن intaas kadib ayuu dhahay mar alaala markaan arko daayirta maanta jirta oo dhaqankii ka tegay diintii xooray food dheer la baxay suuqyada wareegaya cibaadadiina aanba isku dayin waan murugoodaa haddaba dulucda qisadani waxay noo tilmaamaysaa qof walba oo muslim ah waa inuu u degdegaa diinta islaamka kuna dhaqmo wixii xumaanana ay isaga haraan waa inaad mar walba noqoto qof u helan samaha wanaagii wixii lagu farxad yeelay noqo qof xumaha reeba wacyigeliya bulshada wanaagna u sameeya bulshadiisa weligaa xumaan ha ku bedelin wanaag ugu bedel qofkii ku xumeeya noqo mid wanaaga faafiya xumaha reeba cafis badan alla ka cabsi badan dhowrsan wanaag u saaxiiba barnaamijka haldoorka hirsamo waa barnaamij lagu soo qaato arrimaha diiniga iyo qisooyin muujinaya xigmado aad u qiimo badan barnaamijka intiisa badan waxaa looga hadlaa hanuunka iyo horumarinta dhalinta barnaamijkan waxaad ka dhegeysan kartaan raadiyo hirsamo waana barnaamij
muujinaya isla markaana kordhinaya maanka daayarta. raadiyo hirsamo ayaadna kala socon kartaan. waa tahay dhegeystayaal, waxaynu dhexbartanka kaga jirnaa islamarkaana aan ku dhownahay gabagabada barnaamijkeenii haldoorka hirsamo. markana waxaad kusoo dhawaataan qayb ka mid ah oo maanta aan idin bilaabayno qisadii iyana ka dambeysa ceelka biyaha samsamka. waa taxano kale oo maalinba qayb idinkugu soo bandhigi doono isla gudaha barnaamijkan. waxaa taxanahani aan ugu magac darnay wax badan ka baro qisada mucjisada ah ee ka dambeyso ceelka barakaysan ee biyaha samsamka. ceelka samsamku waxa uu ku yaalaa bariga kacbada sharfan oo uu u jiro 21 mitir oo kaliya. taariikhda ay biyaha ceelkan barakaysan kasoo maaxayeenna waxay soo taxnay tan iyo waqtigii nebigii alle Ismaaciil ee uu dhalay nebi Ibraahim, labadoodaba alle naxariis iyo nabadgelyaha koryeele ee. sababta ceelkan magaca samsam loogu bixiyay ayaa ay culimmadu taariikhda islaamku sheegeen inay la xidhiidho qisada ceelkan markii nebi Ibraahim calayhi salaam oo alle u diray howlo diineed lagu amray in uu qoyskiisa kaga tago dhulka uu hadda xaramku ku yaalo oo ahaa ciirsila biyo iyo baad midna aan laga filan. ayaa Haajaro oo xambaarsan wiilkeedii nebi Ismaaciil uu haraad aad u badani qabtay kadib markii ay cabbaar hadbadhan u dhex orday labada buurood ee Safwa iyo Marwo si ay u bidhaamiso safar deegaanka maraya oo ay biyo u weydiisato. Haajaro aakhirkii waxay aragtay biyahan oo ka soo burqanaya dhulka meel ku beegan halkii ay dhigtay wiilkeedii nebi Ismaaciil intii ay ku howlaneyd bidhaaminta safarada. Haajaro oo ka cabsi qabta in biyahani ay ku guraan dhulka oomanaha ah ayaa inta ay hadba dhinac ka soo moostay ku dhawaaqday ereyga sami sami oo micnihiisu noqonaya joogsada. hadal laga soo wariyay rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa isaguna sheegay inuu yiri alle ha u raxmado Ismaaciil hooyadii haddii ay biyahaas iska dayn lahayd waxay noqon lahaayeen il durdur ah. laakiin waxaa jira magacyo kale oo uu leeyahay ceelka samsam oo ka mid ah diiba, barra, cisma, madnuuna, sayida, cadba, saalima, mubaaraka, kaafiya iyo caafiya. magacyadan oo ah kuwa ay carabtu ula baxday ayaa dhammaantood uu macnahoodu ku soo ururayaa ammaanta biyahan iyo inay yihiin biyo ka fiican kuwa dunida caafimaad ahaan iyo baraka ahaan mu'miniinta oo kalena alle ugu talagalay. markii ugu horeysay ee biyaha samsamka soo butaaceen waxay waraab u noqdeen nebi Ismaaciil calayhi salaam oo uu alle u furay kadib markii uu aqbalay ducadii nebi Ibraahim markii uu cidlada kaga tegay qoyskiisa ku sii sagootiyay oo macnaheedu ahayd Allah ayow cid ubadkaygii ka mid ah ayaan dejiyay tog aan saran lahayn oo ku dhow gurigaagii xurmada lahaa. waxay taariikhda islaamku sheegaysaa in nebi Ibraahim markii isaga uu fulinaya amar xagga alle subxaanahu wa tacaala ugu yimid qoyskiisan u soo raray dhulka xarabka uu wax saxay ah u siday qarbad yar oo biyo ah iyo in yar oo timir ah kadibna uu kaga tegay Maka. markanay Haajaro hadbadhan u ordaysaana ay tahay markii biyahaasi iyo timirtii ka dhammaadeen ee wiilkeedu u haraaday mashana uu ku dhawaaday. waxay taariikhdu sheegaysaa in markii Haajaro ay labada buurood dhex ordaysay mar kaliya halkii ay wiilkeedii yar dhigtay kaga yimi cod u sheegaya inay heshay gargaarkii ay u baahnayd. markii ay wiilkii dib u soo ordayna ay aragtay biyahan oo bilowgii si yar uga soo burqanaya. waxay taariikhdu sheegaysaa in waqtigaasi nebi Ibraahim qoyskiisa keenay Maka ay qiyaas ahaan ku beegan tahay 1910 sano ka hor dhalashadii nebi Ciise. marka la eego markii ay biyaha samsam ku dilaaceen ilaa taariikhda aynu maanta joognana ay u dhaxeeyaan ku dhawaad 4000 oo sano. نشامة والوطن عزوة شبابه نشامة والزمن صولة وجهولة نجاحة بطولة وتفوق نقول الله. dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay gabagabada barnaamijkeennii haldoorka hirsamo oo aynu maanta halkan ku ekeynayno. barnaamijkeena waxaan maanta idinkugu soo gudbinay qaybo kala duwan dhanka qisooyinka ugu badnaadeenba. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo bahda hirsamo idin leh waqti wacan iyo la qaadasho wanaagsan.